haddii aad aragto in hantidaada oo la ikhsaartay waxaad ogaataa in ay tahay imtixaan weliba yacni ay kuu tahay dembi dhaaf yacni kafaaro yacni in lagu dembi dhaafayo musiibo kasta oo ku dhaca qofka muslimka ah waa kafaaro dhaaf ama yacni dembi dhaaf nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofka muslimka ah waxa ku dhacaya waxay tahay waa daal xanuun murugo ama yacni dhibaato ama xitaa qodax yar oo ay muddo laakiin alla subxaana watacaala wuxuu ugu dhimaya waxay tahay waa dembiyadiisa nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay maa yusiibu almuslimi min nasbin walaa wasabin walaa hamin walaa xusanin walaa adaa walaa gam حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من قضاياها حديثكني وحموجنا وحتى إن هدي محيرة دواتير نقول عضو سيدي يعني فخر نمو أما دبكعي أما يعني خسارك اللي جسي يعني إن أي سوء نقوم قرطو إن دنبيين نقول نافو وهدي أن صبر يلنو يعني صبر على إيمانه تذوك له الله سبحانه وتعالى وحوليه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير الله سبحانه وتعالى وحوليه مصيبة كستو إذين قرتا ووحا أي كسبتن كعميهنو tusaalo kale haddii dabkacay uu ka dhashay yani tusaalo kale sigaar laga tagay ama yani koronto aanan xirnayn taasoo kale yani waxaa dhihi karaa waxay tahay waa waxa ay kasbadeen gacmihiinu tani waxaana baraysaa waxay tahay inaan ka fiirsanno falalka sidoo kale musiibooyinka inaan u aragno fursad oo Allah subxaanahu wa ta'aala ugu laabanayno markastana loo baahan yahay sidoo kale waxaa loo baahan yahay inta meel fiirsato yani si xigmadaysan oo fikirto oo isweydiiso aniga iyo Allah subxaanahu wa ta'aala xiriirka naga dhaxay waa sidee camalka aan asmayna waa sidee cibaadadeedu waa sidee waa aniga su'aal dhowr ah waxaas kale isweydiisaa sidoo kale nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay markuu alla jeclaado adoonkaas uu imtixaana haddii uu ku sabro wuxuu u doortaa xaq khayrka haddii uu walaal ku noqdana Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu xulanayaa yani imtixaankaas dii uu guuleysto oo dooranaya mabruuq ugu dambeyn qofkii musiibo ku dhacdo waxaa isweydiisaa maxaan bartay maxaan saxaa maxaas ka toobad keeni karaa السلام عليكم.